erayada qiirada leh ee uu qoray Dayaax Dalnuurshe. Waa qoraal qofki aqriya xitaa uu ilmeynaayo. Sabar saaxiib Allaha u naxariisto walaasheen inaad wada noolaataan ayaan jecleen. Alle ayaase inaga jeclaaday, qalbiga Allaha ku qaboojiyo adigana. Qoralkan anigo ilmeynaya dhamaystay. Qof walbo adunka saran waa dhimana manta waa farxiyo barina waa enaga. Kuligen ilahay ha inaga dhigo kiwi janada ku kulma amiin. Walahi dadaal kaste awood kaste oon lahaa waan ku bixiyey. Inaad noolaato balse Allah keliya ayaa iga awood badiyey waanan ku ceshan kari waayey. Waxaad liga tagtay duni ay wanaagsaneed inaan hortaa ka tago oo aan marna filayn xaaladan ay maanta dhimashada ii dhaanto. Oo aan aaminsanahay garabkaaga awoodaada aan dhabta ugu tiirsanaa inaan meel kale oon ka heli doono aysan jirin. Waxaad ii ahayd udub dhaxaad iyo dhiiranaan marka cid kaste isoo xumayso aan dhabteeda ku ooyo kadibna si fudud iiga caawisa kadibna saacad kale aan xaalad ku jirin. Waxay ii tahay maalin madow oo aan culeyskeeda qaadi karin maskax ahaan jir ahaanba balse tan kaliya ee maanta i elinaysa ayaa ah inaan aane hodan cidlayn karin hooyo aabe isku noqday. Hil culus baad iiga tagtay ma aqaan sida aan hodan uga dhaadhicin doono hooyo mar dambe arki mayno. Balse Allah ayaa naxariistiisa weydiisanayaa inuu noo fududeeyo. Dhibtaan aan galnay ee mugdiga noo horseeday adne imaba maqlay sida balantii aan horay kaaga qaaday ee ah xitaa haddaad iga hormarto inaan hodan dayici doonin waa sideedii aniga ayaana gacantayda ku korin doona. Inta aan noolahayna daqiiqad ma arki doonto dhib iyo culeys insha Allah. Waan kuu duceeyey sida aan raali kaaga noqdayna Allah raali kaaga noqay. Oo jannadiisa macaanta badan kugu irsaaq xaaskayga wanaaga badneeday. Itixaankii dunida xanuunkiisaba waad u samirtay, waxaan rajaynayaa inaad maanta midhaha jannada ku gurato samirkaaga hore. Duni aan macaan ku dareemayn oon wax kaste oon qabto iyo tallaabo kaste oon qaado. Intaan farxiyo u sheego lay dhaheen nin karti badan baa tahay. Ku soco baan joogaaye waa uun iska noolaan inta mooku iiga imaanayo. Cid kaste oo sidaan maalinkan mugdiga ila qaybsatay qof uma kala gaaro balse waxaan idin leeyahay. Qalbiga idinka ogsooni ehel asxaab family madax iyo Soomaali weynba. Adigana samir iyo imaan saadiqa ha kaa siiyo geeridu waa xaq wana kuwada xukumanahay. Sidaa ayaynu dhammanteen safar u nahay oo cid nagaanaysa ma jirto. Dayaax qoraalkiisa waxaa idiin soo aqriyey waa anigoo ah Axmed Deeq Xasan. Halkani waa Deeq Same.